السلام عليكم. وعليكم السلام. بيف. 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 كيلو. كيلو 400. 400. نص كيلو. 400. I mean 100 one piece. tell me नाम Oh, buyer. बायर आपका नाम मोहम्मद गौस कुरैशी. मोहम्मद मेरा नाम ज़करिया. ज़करिया. हाँ मैं बहुत पसंद है बीफ पसंद है. ماشي هيلبكا لو قلها هيلبكا بيف كل هذا إن كذا جاي بس ماشان مدح كنول أبداً مش هذا هندوس كأبداً مش هندوس كأنا هذا مجعل مارتي مجعل مدح هندوس كأنا مجعل طبعاً إن يعني هل هذا How are you? I am fine. Hello. How are you? I am fine. I am fine. आपका नाम? मोहम्मद रफीक. मोहम्मद रफीक. मेरा नाम ज़करिया. How? दोस्ती. ها؟ नाम? Aman. أمان هذا لا أمان. أمان. Say hi. Hi. Hi Somalia. बताओ Somalia. Maya. This one. आपका नाम? Sufyan. ها؟ Sufyan. سفيان. Hi. Muhammad. محمد. أوكي. Muhammad Rafiq. باي باي. خدا حافظ. هذا. Blogger. بلوجر. شكرا. Subscriber. 50,000 سبسكرايب. شكرا محمد. marka waxaan maraynay inaan idinkaga warramo marka bulshadan beefka ama hilibka lo'da ayaga waxay u arkaan wax ay caabudaan ay u arkaan marka yani waa it's illegal not just illegal maahan xataa maqar waa harmful ayay ku tahay qofka indiya muslimka ah in lagu arko soo cunaya ama qalanaya ama wax yeelaya maaragtay neefka ariga ah neefka lo'da ah marka laakiin meelaha qaar xoogaa si dhuumasha loo qalaa qaarkoodna waxaa laga yaabaa in ay leesan u haystaan oo la sharciyeeyo laakiin haydarbaadka hadda aan joogno kala tusaale ahaan 1977 1937 meelahaas ayaa la joojiyey oo la baangareeyey in beef ban wax la yidhahdo lagu sameeyey in yani hilibkeeda maqaarkeeda iyo dhammaan faa'iidooyinka ay leedahay maaragtay ilaahay siiyey lo'da in yani looga faa'iideysto la gowraco la cuno oo siyaab kala duwan looga faa'iideysto laakiin waxyaabaha ironiga ah waxaa waaye hindiya lafteeda waa waddanka koowaad ee ah the biggest producer ama the biggest exporter waa waddanka ugu weyn ee dhoofiya maaragtay hilibka lo'da dunida oo dhan gudaha hindiyana wuxuu ka yahay xaaraan 1977 ayaa haydarbaad laga mamnuucay gobolkan haydarbaad la yidhaahdo in maaragtay hilibka lo'da ama lo'daba la qasho ama siyaalo oo ay u arkaan in dhibaato loogu geysanayo lagu sameeyo laakiin caanaheeda waa la cabi karaa si ay aaminsan yihiin sometimes waxaa laakiin idaafi ah ama dheeri ah neefka buffalo ay dhahaan ama lokisiga annaga aan dhahno iyada maaragtay waa iska macquul xogaa inaad qalan karto inaad hilibkeeda caanaheeda cabi karto laakiin tan ay diidayeen mar walba iyagu ay u arkaan inay tahay secret
ama wax qudsiyo leh waxaa waaye lo-da caadiga anaga aan dhaqano. That's my point. aan rabay inaan idin caddeeyo 1977 halkan laga mamnuucay. Isteedada kalena koley ayaguna koley ama waa ka daba dhow yihiin ama waa kasii horreeyeen mamnuucida ay mamnuuceen yacni hilibka ama qalashada lo-da in la qasho. aad baa mahadsan tihiin. waan kusoo laaban doonaa laakiin aan rabay inaan pointi kale ka dhawaajiyo rabay. pointiga kale wuxuu yahay meeshaan ujeedaan hadoo kale dadka musqulo ma lahan. musqulaha dhehe astaghfirullah musqulada leeyihiin ma lahan boosneero ay u isticmaalaan in yacni musqulaha marka bedelkii boosneerka marka waxay isticmaalaan sewage wax la yidhaahdo oo qashinku banaan sida kan oo kale meeshaan oo kale aad runtii ureysaa laakiin waxaa mara qashinka magaalada oo dhan ama xaafadan oo dhan afkinkeeda xaarkeeda saxaradeeda iyo waxyaaba qaar marka qaar mara walow marka qaarna laga yaabo xoogaa in dabaqyada qaar ay leeyihiin maaragtay boosneerooyin ay leeyihiin. haddii aad rabto xoogaa ama qaar inaad isweydiiso kind of dhinac madow dal walba mugtahay wuxuu leeyahay dhan madow iyo dhan maaragtay dhan madow iyo wuxuu leeyahay dhan maaragtay dhan cadow leeyahay. dhinaca madow ee waddankan waxaa ka mid a maaragtay inaan weli ka hormarin dhanka nadaafadda xoogaa waa jiraan bilicda guba kala fiiriyo dalka horumar buu leeyahay laakiin nadaafadda aad runtii ay ugu liitaan. inkastoo magaalo isku mid ahayn magaalo top ay jiraan xataa in candhuufta ku tifto lagu diidaayo iyo meelo bataatanba ay tahaba illegal ma sharci darro in yacni aad candhuufta ku tifto ama wax ku tufto. meel kalena waa tanaa marka qofka raba xoogaa marka inuu yidhaahdo this is India. yes, this is India. laakiin haddana yaanan dafirin xaqiiqda ah. There is also another India which is beautiful, fantastic, fabulous, stunning, appealing, you name it. magaca dadku isticmaal marka wax walba la arko waxay leeyihiin dhan wanaagsan iyo dhan xun ayay leeyihiin. shukriya mastiin.